وإن نقطة قف دينية ودين تو أي حكمين يسو سج سؤال قبرك وكوكو دبيرا توتر هذا أنا الدين تدو إسلام مركز النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالله هركاني قول أورندونا محادو تقاني شخصا مركز أمومك إليه هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام صدح دا سؤالات مؤمنكم مركو قبرك كجوابه أيا سمد الله دواقي الله أورندونا أن صدق عبدي أدون كيجي رمبو شيغي أفرشوه من الجنة فراش جنة كسو قاضو أقوغلا والبسوه من الجنة در جنة كسو قاضو أحدا وافتحوا له بابا إلى الجنة البابنا جنة وغفر جنة هلكا هكذا وذيبا الأورانيا دولكات كو عليسي ميتك دولكان كو آسني منها خلقناكم وفيها نعيدكم هلكات كو آسني ودولك دحدي سويان إن كتاب الأبرار لفي عليين جنة وفوق 7 سماوات هلكا سقفك مؤمنكم جنة سيكدا ونيا sida inaku ba aaladan yareemka aan haysanay mobilka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeyay jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaarada Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheego yiri qabriga dhexdeeda daaqad looga furaya halka buu ka arkayaa jannadiisa iyo naciimtiisa iyo xurul cayntiisa markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa laana jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhul mawt wa ahlul jannati laa yanaamuun baa nabigu alayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahlul jannuhu jannada hadday galaan ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahlul jannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahlul jannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaaraya ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya maaha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكإلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكay ka soo bixi doonaan deedna xaq Ilaahay ba loo soo ururin doonaa markaas qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay waa maxay buu leeyahay iyo hurdadii naga soo kiciyay waan jiifnay waan hurdnay hurdada maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arka khalqigii oo banka qiyaamada sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yawm alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu waja'alna al-layla wan-nahaara آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار بايل هيدي آية الليل آية النهار نولشن الدنيا أن كنا الله ومالين يا هبين مالين تينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسنيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالين يا هبين قبرك هدي لغو دغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نو شيغو يري قبرك وا لبا ميد ويان اما وروضه من رياض الجنه اما حفره من حفر النار مؤمنكين بربرها جنده كميدا لوغا دغيا gaalkiina waxa looga dhigayaa godgodod naarta kamida looga dhigayaa
nina uu hurdaa oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halkaa ha ku daalo ha ku nasto min aadam calayhi salaam laga bilaabo ilaa joogadeena wixii adduunyada bini aadan soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurdaa way nasanaysaa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurdaan maalinka qiyaamaha suurta la afuufo bay qabriga ka soo bixi doonaan laysa ala ahli la ilaha illa allah وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشيدا لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله ينقدقو قبرك مركي قلان كوكاليوب مايان maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug geliya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintiiyo murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan لأنه ويصوب حيان يوم القيامة مالين تسرجوغا ويوم قرآنك يوم بوشيغا هبين مشيغن يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة habeen ma maqlaysid habeen ka doondoon waa kaas qiyaamaha markuu ilaahay ka warramayo waa maalin weeyaan habeen male waa maalin kaliya wa fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana yawma idin tu'radun la takhfa minkum khafiyah yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh yawma ilaahay tabaaraka wa ta'ala yawmkaasina quraanka ilaahay noogu sheegay waa 50 sanadood ibn abbas radiyallahu anhuma مفسر كي قرآن كوحو كفسروا يدي 40 سنة ولا جوجي 10 سنة حسابتها كل ماني دون تبو يدي 40 سنة ويا سيد الله تاجنان دونا 10 سنة حسابتها كل مان دون لنا عربي ورير بادية أيا سرك عير يا رسول الله مالك قيامة خلقك يا حسابي دونا مرقا سوري إلهي با حسابي دونا ربك حسابي دونا مرقا نكي عربي انتو سيجي استيبو يدي نجونا ورب الكعبة كعبة ربك يا كو دارتي وان بدبادني بودي وان نبد قلي بودي مرقا ابو النبي يقول سونغو سيادو كو نبد قشي بو كيدي بلي شيك وعد وا كريم إلهي وا كريم هدو دون اسكا كايا عفين بودي معيد با سكا قبسان يسيبو يدي وا كريم كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو هدو جران أبو رسول كل أي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عد وكل أفعلين ليس مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كيشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولين نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي يقول تمر جيح تمر إني كان هلين بو نبي يقول ياي هذا الكوناكسن هكو هالله كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خير كعضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي يقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين
ayaa tidhi markuu nebigu yidhi yuxsharu nnaasu yowma alqiyaamati xufaatan curaatan ghurla bay tidhi yuu yidhi nebigu sal alla alay wasalam maalinka qiyaamaha dadka waa la soo xashrin doonaa ayakoo cagaagan oo bilaa dhar ah oo kaba la'aan ah oo markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayakoo cagaagan kaba ma wataan dharna ma wataan qof walba baaradiisii baa ku taalla waa sidii lagu dhalay weeyaan markaasay caaisha tidhi radia allaahu canha uma almu'miniin rag iyo dumar maalintaas maa laysdhex soconayaa haa waa laysdhex soconayaa qofku qofka kale muunan eegayn markaa buu nebigu yidhi yaa caaisha qofku qofka ag socda maalintaasi ma ninbaa ma gabadhbaa ma naagba maba eegaya buu rasuulku yidhi hamigaa ma jira buu yidhi hortiisa waxaa taalla naartii jahannama qofka cataa assulami raximahullah ninka la odhan jiray wuxuu ahaa nin murug badan buu ahaa murug badan salafu saalix 30 sano baa la yidhi ninkaasi dhulka mooyaane cirka ma eegin markaasaa lagu yidhi murugtan badani waa maxay baa lagu yidhi ma dadkani waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yidhi dadka aniga waxba igama geline taydan anigu aan ka hadlayaa waxaan inii sheegayaa almowtu fii cunuqii geeridii baa qoorta ii sudhan waalqabru beytii halka lay dhigayana waa qabriga weeyaan waalqiyaamatu mawqifii meesha lay joojinayana waa banka qiyaamo weeyaan wa cala siraati tariiqii waddada lay marin doonana waa jidka siraad weeyaan warabbii laa adrii maadaa yafcalu bii rabbigay wuxuu igu samayn doonana kama warqabi buu yidhi anigu intaasoo marxala ninka ay sugayso isagu hadduu qosle ha qosle buu yidhi anu taydaan ka warramayaa buu yidhi intaan noolahay oohin baa nolosheeda ku dhammaysan buu yidhi maanta waa adduunyo barritoola waa aakhiro weeyaan camalkaagaad la dhaadhacaysaa maxaad wadataa maxaan wataa anigu maanta almu'miniin caaisha radia allaahu canha shiddada qiyaamada markuu nebigeennu ka warramay calayhi salaatu wasalaam ayay tidhi yaa rasuula allah maalinka sara joogga ayaa u adkaysan karaya bay ku tidhi man yaqwa ayaa karaya bay ku tidhi 50 kun oo sannadood markaa buu nebigu yidhi caaisha qofka muuminka iimaanka leh ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka intaad tukataan in laag baa banka qiyaamo looga dhigi buu yidhi inteen tukanay salaaddii maqrib 5 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyadan intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee tallaabaduu qaadayaba eega aakhiradiisa hadalku intuu ka soo bixin qofka muuminka aakhiraduu eegaa dhaqaalihiisa intuunan bixin aakhiraduu eegaa meeshuu marayo aakhiraduu eegayaa meesha aan u socdaa ma meel aakhiradeeda iga dhaawacaysaba mise waa meel aakhiradeeda waxii taraysa hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dhib ii geysanaya ha dhowtoole mise waa hadal aakhiradeeda aan ku badbaadaayo dhaqaalahan bixinaayo ma dhaqaalo aakhiradayda ikabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeece ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaamo looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay dharaariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta o dhan kaa joojinaya wanaag o dhanna kuu diraaya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradan xaggeegu ugu yeedhay
waxa ilaahay kaaga raali noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariish markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nabigu wallaahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yidhi saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalka dhisaysaan malagii suurta afuufayay waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلين يا وحنا ديقيس قلبك سامين يا وحنا ديقيسين قلبك سامين يا وحنا تكوهل قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصمودود قلبك ابن هذا كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد كهذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء بقلبك دحل قالك قبيا قرآنك آخر سكي سؤال الله بديو يا آخرته أنت بدل لا شك شك الله حسوس الله شكايو labadaa maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina waa nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بيقول علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو واسد مساجد دو كلويان سد مساجد إله الله قوينين أيو أيا زمن النبي سوقنا إله الله قوينين أيي سد مسجد كده حديث إله الله قو عاصيين أيا سوق وجين إله الله قو عاصيين إنك أنا زمن كنا مانتا شيء كذي دبادة تالي أي الله جاي أبا إن لك أنا مسجد كجوديهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقابو النبي يقول إلهي كوم السوء اللي يبو كيدي هذا أركتان بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي كوم السوء اللي يده هذا أركتانا نن مسجد كده حديث جناعسي هي تجارة كده سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوم بركة هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي لورد سيب رسولك يريد نولش مساجد تالبا علماء ليهين أيا الربعين دبد الله ساري نولش دبد تالا مسجد كاين لك أنا ماها